Welcome back akheerta kusoo dhawaada qeybtii saddexaad ee programming using Python. Sidaan horey usoo aragnay waxaan isticmaalaynay idle oo ahaa program kuu sahlaya inaad isticmaasho Python, laakiin hadda waan ka wareegsan doonaa sababtoo ah waxyaabo badan oo ka maqan awgeed. Waxaan ka mid ah in aan ku shaqeynay markii hore Python shell kaasoo wixii lagu qoro aan laga tirtiri karin. Sidoo kale haddii aan damco Python file inaan wax ka bedelo, waxa uu u baahnaa inaan mar walba save dhaho. Sababahaas oo jira awgood waxaan isticmaali doonaa program lagu magacaabo PyCharm ka oo naga qabtiri doona wax walba oo naga maqnaa markii aan joognay idle. Sida idin muuqata waxaan joogaa computer Windowskiisu uu yahay Windows 10. Sababtaan u imaadana waxay tahay in computerkan uu ku jiro PyCharm ama Python. Chrome ayaan soo kiciyay. Marka hore Python inaan soo dejiyo u baahanay sababtoo ah PyCharm waxaan ka isticmaali doonaa waxay tahay Python. Sidaas awgeed Python waan soo dejin doonaa, computerkan kuma jirto. Website-kii aan markii hore kasoo dejin ayaan kasoo dejin doonaa oo ah python.org. Python.org marka soo kiciyo kadib wuxuu dhihi doonaa wuxuu ku geyn doonaa webpage sidan ah. Webpage-kan wuxuu ku jiro qaybta downloadska. Directly marka hore wuxuu ku soo saaraa version-ka download gareysanaysid oo latest-ga ah. Marka hore download aad dhihi doontaa kadibna run gareyn doontaa. Markii aan run dhaho wuxuu ii soo saari doonaa inuu idhaho install ama customize installation. Meesha ku install gareynaysid customize ama meel ku gooni ah ka dhigo ama install dheh oo caadi meeshaas uu asig ku tilmaamay dhigo. Waa isku mid, wax macno lama soo kordhinayso. Markii aan install dhahay aniga qaybtii hore install maanan dhihin sababtoo ah upgrade ayaan dhahay oo uu igu jiray. Hadda laakiin iguma jiro, caadi ayaan ugu shubayaa oo markii koowaad. Markii uu dhameeyo installation-ka close ayaan iska dhihi doonaa. Python hadda saas ayuu igu jiraa. Waxaa ii dhiman inaan soo dejiyo PyCharm. Haddana PyCharm laftirkiisa ayaan search gareyn doonaa. PyCharm markaa search gareysid wuxuu leeyahay 3 qaybood oo ah PyCharm Education, PyCharm Community iyo PyCharm Professional. Anaga waxaan qaadanaynaa qaybta oo community-ga. Qaybta community-ga iyo qaybta professional-ka. Professional-ka waxa waaye lacag. Qaybta community-ga waa free source ama open source oo free. Marka download ayaan dhihi doonaa PyCharm Community. Wuu dejin doonaa, xoogaa ayay qaadan doontaa in uu dejiyo PyCharm Community. Aniga waa video skip ayaan dhahay. Marka wuu soo kicin doonaa run markaan dhaho uu dego kadib run ayaan dhihi doonaa. Qaabka installation-ka aan mari doonaa si fiican ula soco steps aan qaadi doono ayaa jirto. Marka koowaad uu ku soo saaro next ayaa leedahay kadibna path-kaaga waxaa ka dhigan doontaa midda caadiga ah oo kuu soo qoro. Waa iska caadi. Waxaana waxa waa option uu ku siinayo midka rabtid waa ka dooran kartaa, laakiin wax muhiim ah meeshan hadda kama muuqdaan. Waxaa dhihi doontaa next. Marka aad next dhahdid aad ku dhufatid kadib waa install gareyn doontaa. Install markaan dhahay uu dhameeyo uu install gareeyay kadibna finish ayaan ku dhufan doonaa. Run ayaan check saaraa si uu markii aan finish dhaho soo kaco programkii aan maanta dhan waday. Hadda PyCharm-kan naqshadiisu cusub tahay oo kii ugu dambeeyay latest-ga ah. Sida awgeed do not import setting ayaan ku dhufan doonaa marka koowaad oo okay ayaan dhihi doonaa. Policy ama privacy policies waa akhrin doonaa, laakiin sida loo akhrinayo waxaan tirada ka batay. Akhrisaba ka soo qaad last meesha ugu dambeysa kadibna I agree iska dhufo.
haddaa mucaaradid maxaa ku install gareysmaya. Continue dhe markaas continue marka dhahid wuxuu ku geyn doonaa do not send ayaa dhihi doontaa. kadibna pycharmkaaga waa diyaar. hadda waxaad diyaar u tahay inaad samaystid first pycharm project, oo saas ayaa waxaa ku tahay Python developer. kadibna markii uu programkii soo kaco new project ayaan sameyn doonaa, projectkii ugu horeeyay ee pycharm. new projectgaas markii aan ku dhufto balaaska calaamadda ay ka horeyso, waxaan diyaar u ahay inaan sameeyo ama magac u bixiyo projectkii ugu horeeyay ee Python ah, kaasoo lagu dhex isticmaalayo pycharm. kadibna magaca rabtid ayaa u baxsanaysaa. anikeyga waxaan u bixin doonaa Sunbrook. as you can see create ayaa dhihi doontaa si aan u abuuro projectigii ugu horeeyay ee pycharm. shaashad saan kuu soo saari doonaa. shaashada saan ah markuu kuu soo saaro waa iska close gareyn doontaa. shaashadaas muhiim ah, projectiga ayuu import gareyn doonaa. xoogaa indexing ayuu ku sameyn doonaa, waqti badan xoogaa ma qaadanayso, laakiin sekemo ayay naga qaadanaysaa. shaashadan hadda waa iska close gareyn doonaa. markaan close dhaho kadib uu indexing ka dhameeyo, waxaan sameysan doonaa new Python file. sidee u sameysana? projectiga aan sameeyey oo Sunbrook ah ayaan right click dhigi doonaa. markaas aan right click dhigi dhaho kadib ayuu wax isoo saaraya new. markaasna Python file ayaan ka dooran doonaa. Python filekeyga magacaan rabo ayaan u bixin karaa. anikeyga waxaan u bixin doonaa Sunbrook ayaan u bixin doonaa. kadibna Python file ayaa saas kuugu sameysan. you ready to go inaad sameysid programo Python ah, kuwaas oo useful u ah real life. fileka Pythonka markaan sameeyey kadib waxaan ku barnaamijin doonaa print function hore usoo qaadana. waxay soo daawaceysa shaashada in wax kusoo daawacdo. markii ayada qore waa uu isoo madhiyo. markuu kuusoo madhiyo intro dhigi kartaa uu kuu dhamaystirayo. saas ayaa marka wuxuu faa'iidooyinka uu leeyahay kamid ah inuu intelligence ama suggestions uu leeyahay oo erey aad qoraysid oo hore kuugu sii diyaariyo. sidoo kaleeto settingkiisa inaan wax ka bedelno, qof walba uu dooq uu leeyahay. hadda madow oo aan yahay waa iska bedeli kartaa. adiga waxaa ka dhigan kartaa shaashada dhan cadaan, fartana waxaa ka bedeli kartaa oo waxaa ka dhigan kartaa farta rabtid sizekeeda. ani hadda wuxuu ii yahay dark color. adiga haddaa rabtid waxaa ka dhigan kartaa high contrast ama IntelliJ. haddaan ka dhigo shaashada dhan cadaan ayuu ka dhigi doonaa, fartana kalar madow iyo kalar nooc kale oo cadaan ka dhex muuqanayo. sidoo kaleeto setting waxaa ku jira editorka. waxyaabaha uu wax ka bedelo waxaa kamid ah farta sizekeeda, fontigii macnaa fartii inaad bedeshid noocay tahay, sizekeedana inaad bedeshid waa bedeli kartaa. marka sida awgeed waan bedelay ani hadda. CPU waxaa culus, sidaas darteed ayuu kalarka uu isku keeni lahayaa. laakiin hadda waxay dhan waa wada cadaan si aad u jeedid. aniga hadda cadaanka ayaa hadda igala qurxan markii hore mugdiga. dooqa adiga way ku qosaysaa waxaad dhiganaysid. print function markaan dhahay hadda sidii ugu soo daacantay iyo kalarkii hore ee leed hadda inay xoogaa nadiif tahay ayaan maleysaa. marka sizeka haddaa rabtid waa bedeli kartaa mar kale oo qaabka loo bedelayo hore usoo aragnay. hadda sizeka waa weyneyn doonaa marka qaabka intuu la ekaado fiiri. hadda waa fresh oo ujeedaa. marka waxyaabo badan oo adiga iska bedeli kartid oo dooqaaga waa jiraan, sida adiga ula falgashid ayay ku xiran tahay. marka print functionkan oo isticmaalayna aan soo daawacana Sunbrook. printi ayaa lagu dhex qoraya sidaan ogeynba Sunbrook. marka hadda kadib waxaa leedahay right click kadibna run ayaa leedahay.
si aad print functionka wixii ay qabanayso usoo muujisid. Code walbana run inaad dhahdid waaye markii aad file Python ka dhex joogtid. Sunbrook ayuu soo bandhigay sida ujeedid. Saas ayaan ula falgeli doonaa. Qaybteena ugu horeysay ee aan PyCharm isticmaalayno waa qaybtan. Qaybaha xigana waxaan rajeynayaa inuu xiiso lahaado.